mayo weynada sidaad muuqaalka ka dheehanaysaan waxaad arkaysaan dad raxanaha jooga goob siligay ku oodan tahay dadkani waa dad hadda soo galay oo cusub waxay ka dambeeyeen dadka haddeer aan gaarsiinay deeqda cuntada ah ee ka badan 1000 qofood saacadda ka dambaysa dadkani waxaa lagu keenaa gawaari ayagoon ogeyn meel ay cuntada ka helayaan iyo hooy meel ay ka helayaan kaamka kani ku yaala lambar 50 waxaa ku xareysan tiro ka badan 5000 qoys naharayna awooddeeda ma gaarsiisana ilaa wax yar oo awoodda maahan cuntadii maanta ay bixisay waxay ku kooban tahay oo kaliya $85 ay ku kooban tahay waxayna gaarsiisay 1000 qofood ay wax siisay waxaana jeclaan lahayn dadka kuwani ee aadka u dhibaataysan markastana soo gala ayagoo cusub in gacan la siiyo waxay rabaan loo fuliyo ilaahay ka sokow waxaan ka sii codsanaynaa dadka na daawanaya filimkan na arkaya inay gacan gaarsiiyaan walaalahoodan dhibaataysan ee ku dhibaataysan guud ahaan gobolka Soomaaliya gaar ahaan Shabeellaha Hoose ee kaga dhibaataysan yihiin waxay cunaan email ay hooydaan dadkani u baahan dib u dejin iyo in caafimaadkooda iyo cunadooda laga fikiro ayaa waxay ku dhibaataysan marxadani banaan aan jirtay airportka kuwaas oo haysan meel qoraxda kaga gambadaan iyo roobka meel ay kaga gambadaanba intani siligu ku oodani uma hayna waxay cunaan ayagana waxay diyaar u yihiin inay dadka soo dhex jiiraan siliga xitaa ay soo jiiraan si ay u helaan wax ay cunaan anagana waxaan wax siinay cidii dhibaatada aadka ay uga muuqato